مدن رئيس الوزراء مدن قدومية مدن ياشا لبدا أقل حكومة فدرالكا يكون لبدا أقل جبلان صاحبكي قرب تاغن odayaasha dhaqanka ururada haweenka dhalinyarada baada saxaafadda ciidamada amniga kooxda fanaaniinta oo rabeen ugu hormariyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan aad u soo dhaweynaynaa safarka uu noogu yimid ra'iisul wasaaraha iyo wafdigu hogaaminayay oo aan isleeyahay in caawa halka xafladan lagu qabtay waxay isaga u tahay taariikh iyo xusuus waayo iyadoo jajaban buu halkan dhagax dhigay aniga isagoo wada soconna aad looma filaynin in dhismaha noocan uu ka soo baxayo taas isaga waxay u tahay shay taariikh waxaa inta badan dadku ay ka hadlayeen dareenka ay qabaan ama dhalinyaro ha noqdo ama haween ha noqdo ama odayaal ha noqdeen mudane ra'iisul wasaare Soomaaliya waa xukuumad federaal ah oo la yagleelayo oo taariikho badan iyo culays badan iyo Soomaaliya burbur badan bay soo martay waxay u baahan tahay waxay naga maqan ma jiro Soomaaliya baahideeda iyo waxqabadkeeda ugu badani maanta wuxuu yahay hoggaanka alqiyaada raashida waxa la yiraahdo hoggaanku haddii Soomaalida wada sax ah hoggaan fiican isku duubnida ka shaqeeya cadaalad sameeya la helo waxaan isleeyahay shacabku maanta uu bislaaday way soo kartay dawlad la'aantu waxa ay tahay waan idinka mahad celinayaa shaqadaad qabateen culayska idin soo wajahay sida wax badan iyo dana badan waddanka looga leeyahay faragelin badan u iman karayso haddana waxaan rabnaa in la ilaaliyo midnimada iyo isku duubnida shacabka Soomaaliyeed dalka iyo dadka loo horseedo siday uga bixi lahaayeen culayska iyo dhibaatada haysta iyo shabaab iyo dhibka ay ku hayaan mudane ra'iisul wasaare shacabka Soomaaliyeed waxaa baaba'aya oo sii dhamaanaya jiilkii ku soo tarbiyoobay ku soo ababay ku soo koray dawladnimo Soomaaliya maanta dadka magaaladan markaan dhex maraynay maalin waxaad aad u xusuusood u lahayd dhalinyaro ay u badan yihiin dhalinyaradaasi ama qaxootinimay ku dhasheen iyo dagaal sukeeyay iyadoo uu jiro ama xilligii dawladdu burburtay iyagoo markaas dhashay oo sanad iyo laba jira yaa dawladdii Soomaaliya markaa inyaarkeedii u dhacay taa macnaheedu waxa weeye waxaa lumaysa waddaniyadii shalay jirtay dawladnimadii shalay jirtay aqoontii dadku ay lahaayeen kuwa kale taxayna dibadda u baxayna nin waliba wuxuu ku khaldamayaa jinsiyadda uu leeyahay ninku baasaboorka kale uu wato yaa wuxuu odhanayaa baasaboor waxaan wataa anuu dawlad heblaan ahayo jinsiyad kale sheeganaya sheegashada uu jinsiyadda kale sheeganayaay nin laba wadan leh oo laba kaar leh uu iska noqonayaa sheegashadaasi waa mid marka dambe laga yaabo inaynan u noqonin sida ugu fiican ee qofka Soomaaliga ugu fakari karay sidaa daraaddeed waxaan odhan lahaa inta weli dadkii hore wax ka nool yihiin waa dawgaas Cumar Xiire uu lahaa inna qarshe hadda ula noolaanayaa ciidamada hadda jira sababtoo seerjitadii uu shalay yaqaanay ee libaaxii Afrika ahayd iyo waxay ku dhaqmayeen iyo meeshay marayeen iyo maanta waxa yaala waa farqi aad u dhaxeeya sidaa daraaddeed waxaa la idinka rabaa oo looga baahan yahay mas'uuliyiinta Soomaalidan ku jiro inaan bal dalkan isku dayno inaan u horseedno oo la riixo oo hore loo wado oo la isku dayo dadku kuwa bannaanka inaga jiraan inay noo yimaadaan kuwa gudaha joogana inay dawladnimada dareemaan dadku cadaalad ay helaan waxbarasho la helo amni la helo shabaab oo ah culayska maanta inoogu badan waan ka maarmi karaa amisom iyo quwado shisheeye laakiin innaga isxilqaankii baa inaga maqan
inaan isku tashanno lafaheenna aaminno wiilasheenna aaminno tababarkay u baahan yihiin aan siino kharashka wax kale aan ku bixinayno aan ku bixinno ee kuwa boorsooyinka wata la siinayo taasaa waxay aada uga fiican tahay inaan siyaalo kale iyo ciidan kale oo shisheeyaa tala saarano middaasaa mar walba inooga fiican sidaa daraaddeed maanta fulinimana laynooguma sheegi jirin kuwa inala dagaalamayana waa soomaaliya in yaroo kaloo lagu daray laakiin waxaad moodaa inaan innagu u baahannahay isku tashi dhaba inaan samayno oo soomaalinimo ah waxaan marar badan ka hadlay amisom iyo kuwa dhaqaalaha ku bixiya iyo soomaalida intaba inay dhibaatada ugu weynee jirta ay tahay la xisaabtan la-aan weliba aan anu eedda u soo jeedinay dowladda federaalka ah oo ay ku yar tahay xisaabtanka ciidanka amisom kuwa dhaqaalaha siiya maxay qabtaan shaqadee laga sugaya away xaggee loo socdaa maa la socdo in intaa lagu xisaabtamo iyagu waxayna weydiinayaanna ay tahay away ciidankii soomaaliyeedana raaci lahaa inaan iyagana u hurno wiilasha ciidanka ee soomaalida ah ee ciidanka waddanka ka dagaalamaya dhaqaalaha ay u baahan yihiin iyo baahidooda loojistikada intaan iyagana u diyaarino ay ku talagalaan soomaalinimo iyo inay u dagaalamo waxaan u malay cid ka geysisani inayna jirin taa aan ka shaqayno arrintaasi mas-uuliyadda dowladdu ay leedahay ha qaadato waxaa jiray madmadow inta badan la sheegaya hadda waxbarashaa laga hadlayey amni baa laga hadlayaa wax badan oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay tirsanayaan waxaan u malaynayaa iscafis guud baa wuxuu ka dhacay garoowe oo madaxweynaha jamhuuriyaddu uu yidhi war hal iscafiyo oo aan tashanno oo gacan geel jira kor looma maydhe hoos aan u maydhno waa erey saxa bay ahayd tii bay qayb ka tahay gacmihii hoos loo maydhaya ka mid ahayd safarka ra-iisul wasaaraha uu ku yimid halkan iyo wasiiradii ugu muhiimsanaa waliba waxaan idiin sheegayaa inta la socota inta badan annagaa dalbannooni wasaaraddaana waxbaa nagala jira taana waxbaa nagala jira ha yimaadeen si fiicanna wada hadalkaygu ugu dhacay aad baan ugu faraxsannaa laakiin in la abuuro kalsoonida iyo waxaa dadka kala mudan yihiin waa shay muhiima waxaana rajaynayaa iyagana aan isla garannay waayo dadku wax badan bay waxay isweydiinayaan tole madaxweynuhu muxuu idiin sheegi doonaa wixii aan nimankan ka tabanayna ma dhammaatay hadda suldaanku wuxuu yidhi walba waxaas hal libaax harkiisaa ma godlato nimanka dee aarkii baa ka dambeeya waxay noqonaysaa in madaxweynaha meeshiisii loogu tago isaga aan wada hadalka dhabtaana isla gaadhno wixii heshiisana aan soo qaadanna haddii ilaha yidhaha laakiin mabdi'iyan waftiga yimid iyo ra-iisul wasaaraha waan isla qaadanay qodob kasta oo cabasho ay ka jirtay ama wax la iska weydiinayay mid walba sidiisaan isula meel dhignay waanan ku heshiinay waxaanse isla qaadanay inaan safar dhow madaxweynaha inuu yimaado iyo in loo tago inay ka fiican tahay in isaga loo taga marka hore taa hadday noqotay markaa inaan anigu u tago oo madaxweynaha mar haddii waxoogaa ay soo baxbaxday xalkii la sameeyo waxaan rabaa erey aada loo warwareejinaya inaan maalin dhaweyd aan idhi aan ka hadlo maalin dhaweyd baa hadal waxaa iga soo dhacay aad baan very emotional u noqday soo dhoweynta xooggeeda waxay la noqotay wax aada u weyn waxaan idhi malaha ra-iisul wasaarihii ma madaxweynihii ka weynaa baa jooga taasaa waxay keentay markaa inaan idhaahdo madaxweynaha jamhuuriyadda tiyo waxaa la yidhi warar badaan laga turjumay inkastoon markiiba ka cudur daarto oon ku idhi wuxuu ahaa hadal oo carabka uu sidaa u waxeeyey haddana soo dhoweynta aada u cuslaydoo waxaan is idhi madaxweynihii baa jooga marka aan lafteeda argagaxu jiray gadaal markaan fiiriyeyna sawirkiisii baa saaraa markaa taa aad baan ugu sheegayaa dadka warka inta badan raadinayahay waa iska macno darri weeye in loo jawaabana sax maaha laakiin waxa dhabtaa ee laga hadlaya iyo waxa uu yahay in la fiiriyo hasana mudane ra-iisul wasaare aad baan ugu mahad celinayaa adiga waftigaaga waxaan rajaynayaa reer jubbalandna maanta amni hadduu jirana waa midka aada arkayso oo magaalada aan saan doona u dhex marayni soo dhoweyntana asal baanu nahay waxaan u baahan nahayna waxaa weeyaan dadkaani waa dadka idinku xukunteen waa shacabkiinnii ha ku ekaanina villa soomaaliya waxaad ka gaabiseen oon hadda ka hor idinkala hadlay madaxweynahana waan la hadlay adigana waan kuu sheegay weliba dowladda federaalka dhagax dhig badan bay leedahay oo aan aada u soconin waxaan idinku idhi shirkii golaha wasiirada markii aad halkan lagu qabanayay ra-iisul wasaare xafiisyo aad leedihiin dhista guryo dhisa
safaarado shirarka doontaan ku qabsada furayaasha idinku aad leedihiin madaxtooye ama Jubbaland kaliya state kasta xaruntiisa xarun federaalku uu leeyahay oo guest house leh oo guryo oo xafiisyo leh inay ka dhisaan oo ayna shaqada dawladdu ku ekaanin inay xamar kaliya ku koobnaateen ay noqoto mararka qaarkood hay'adaha dawladda iyo shirarka gudiyada joogtada ee baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo inay ka dhacaan caasimadaha kale dawlad goboleedyada si shacabku ay u gartaan dawladda ay shacabka u yihiin iyo mas'uuliyintoodu kuwa ay yihiin laakiin maanta reer Jubbaland haddaan reer Jubbaland iyo mas'uuliyintoodu kor taagan tahay madaxda federaalkana TV sheegayo ay ka maqlaan iyo qolo saxaafado aad u sawiraysa inay u qaataan dawlad kale inay tahay maxaa u diidaya ama aslee arintaasi mas'uuliyadeeda idinka iskale waxa dhagax dhigtaana ka dhaweeya dhismo sameeya isku xidhka iyo dawladnimada iyo isdhaxgalka waxa asal u ah socodkuna inuu ku bato meel aydan u baahneen in la idin soo dhaweeyay iyo in la idin marti qaadiyo in la idin ku waxeeyo gaadiidkeeda iyo guryaheeda iyo xafiisyada leedihiin baan sideed walba ka dhisi kartaan iyo gobol walba inaad sidaa yeeshaan baan aad u soo dhaweynay manihin warka inta u badan ee tuhunka dawlad goboleedyada iyo wax gooniya maya waxaan rabnaa marar badan ka hadlaynaa sharci baan leenahay dastuur baa jira in isaga lagu dhaqmaayo waa shay aad u fiican dadku waxay ku heshiiyeen ay dhigteen baa asal ah inay isaga ku heshiiyaan inay isaga ku dhaqmaan inuu isagu kala hago waa mid shay asal ah waan soo dhaweynaynaa waxaan rumaysanahay madaxweynaha qaranku inuu yahay madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya annaguna aan nahay xertiisii iyo kabiiradiisii iyo kuwii la shaqeynayay ra'iisul wasaaraha sidaas oo kale marar badan shirkii iigu horeeyay aan ka qayb galay Garowe waxaan aad u idhi magacyada aan kala bedelo oo balan ama madaxweynaha aan magac kale u bixino kolan boqor yar iyo wax nidhaahno ama kuwa isteediyada aan magac kale u bixino madaxweynenimada aan ka dayno oo dastuurka intii lagu qoro xataa magaca la saxo hadii kale marar badan madaxweyne waa la soo doonaa aad baad u mahadsantiin waan soo dhaweynayaa reer Jubbaland waxaan leeyahay dawladda in la xisaabtamo ceeb maaha in annaga nala xisaabtamo ceeb maaha waxaan kala tabanayna inaynu sheegnana waa sax madaxweynahana waan soo dhaweynaynaa awal waan soo dhaweynaynay waan u tagaynaa awal waan tagi jiray in la wada hadlo oo wixii dan ee dadka ka dhaxeeya la isweydiiyana waa shay waajiba waxaan ka wada hadlaynana wax qof leeyahay maanta aniga waxa la igala hadlayo rasuul xasan khayre oo Jubbaland uga baahan yahay ma wax reesha waxaan islaan ay leeyihiin iyo waxaan qaraabo ku leeyahay wax dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin iyo dalka Soomaaliyeed waxaan iyaga weydiisanaynaa kala hadlaynana wax naga dhaxeeya sidaas mudane rasuul wasaare ku soo dhawow Kismaayo mikrofoonkana ku soo dhawow aad baad mahadsantahay salaamu alaykum.